iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag ay si toos ah uga bilaabatay qaadashada kaarka codbixintu ayaa maanta waxaa kormeer ku kala bixiyay meelaha ay ka socotay qaadashada kaarka codbixintu wasiir ku-xigeenka dib u dejinta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdalla iyo wasiir dowlaha beeraha Soomaaliland Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabdilqaadir ayaa kormeer ku tagay qaybo kamid ah gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo ay si toos ah uga socotay qaadashada kaarka codbixintu iyagoona halka warbixin kaga dhageystay shaqaalihii ku sugnaa goobahaasi. halkani waa dugsiga Abiyan waxaan nahay kooxdii loo xil saaray ka shaqeynayay magacaygu waa Maymuun Aadan waxaan soo booqday wasiir dowlaha kaarka qaadashadooda ma badna kiis ilaa 3 shan ka shaqeynayay. Bismillahir Rahmanir Rahiim halkani waa goobta kaarka qaadashada waxaan soo booqday saaka wasiir dowlaha beeraha iyo wasiir ku-xigeenka dib u dejinta Aadan Mr. Aadan ku faraxsanahay booqashada soo booqdeen kaarka qaadashaduna si fiican bay u socotaa oo dadku si fiican bay u qaadanayaan runtii waxa muddo dadku inay fahmeen in kaarka qaadashada ay sameeyaan kaarka soo doontaan marka soo dhaweeyna madaxda soo booqatay aadna ugu mahadceliyeen. ugu dambeyntii waxay wasiiradu ugu baaqeen shacabweynaha ku dhaqan gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle inuu muwaadin kasta qaato kaarkiisa codbixinta. Bismillahir Rahmanir Rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan joognaa goobta dugsiga Abiyan qorshahay wuxuu ahaa anigii wasiir dowlaha wasaaradda beeraha Cabdiwaaxid inaan soo indheeyno guud ahaan kaarka qaadashada iyo sida u socoto runtii waxa farxad noo ah in guud ahaan u socoto si habsami socod leh oo marka eegto goobaha aan mareynay inkastoo runtii dadku ay maalin ka dambeeyay soo kordhayaan haddana waxa dareemaysaa in dadku ay u heelan yihiin ay diyaar u yihiin runtii inay qaataan kaarkooda halkan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto baaqo dadka gobolka Sool waxa weeye maanta waxaan doonaynaa inaynu muujino waxaan ku raadayay ay gobolka muujiyaan kartidooda iyo cududooda runtii ay muujiyaan taasina waxa lagu muujin karaa waxa weeye in qof walba kaarkiisa qaato si berito madaxweynaha ugu qayb galo doorashadii madaxtinimo aad iyo runtii ugu faraxsanahay hawshu way noo socotaa si fiican runtii inoogu socotaa waxaan rabaa sidoo kale inaan ka amaano ama aan uga mahadnaqo guud ahaan howlwadeenada komishanka doorashooyinka ee gobolka sida wanaagsan runtii isugu xiran yihiin sida wanaagsan hawsha u wadaan gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu maxaan ku raadaan hambalyeynaya goobihi saaka soo marnay gaar ahaan goobta hadda aan joognay dugsiga Abiyan qaaladda aad soo dhaweeyeen. Bismillahir Rahmanir Rahiim saaka waxaan soo kormeernay goobaha codbixinta ee degmada Laascaanood oo meelo door ah tagnay runtii marka hore si nabad ah degmada guud ahaan uga socotaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa howlwadeenada kala duwan ee komishanka qaranka iyo howlwadeenada goobaha aan soo booqanay sida aan loo socono gobolka 3 shay ka socota diiwaangelinta codbixiyayaashu kaar qaadashada codbixiyayaashu runtii diiwaangelintu way socotaa laakiin wali sidii la doonayo ma socoto waxa muddo in gaabis badan dadweynaha ku jiro waxyaabaha kale waxa kamid ah qofka goobtiis loogu talagalay markii hore kaarkiisa ka waayo meel kale loogu tilmaamayo kadibna qofku ka caajisayo kulli waxaan isleeyahay maadaama muddo door ay magaalada gudaheeda oo li doonto dadku way la qabsan doonaan wayna fahmi doonaan guud ahaan wacyigelin way socotaa gobolka xukuumad ahaanna iyo waxaan ku dadaalnaa in wacyigelinta si xoojiyo dadkana aan bulshada la dhex galo loo sheego muhiimadda ay leedahay in dadku kaararka qaataan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay sida nabadgelyada hawsha socoto. Walibaan Axmed Ciise Liibaan Qaran SAB TV Laascaanood.